بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. guulaystayaasha waxay diiradda saaraan guusha, guuldareystayaashuna waxay diiradda saaraan guulaystayaasha. Dhammaan riyooyinkeenu way rumoobi karaan haddii aan haysano geesinimo aan ku daba joogno. Inaad xirato suud qaali ah kuma noqonaysid qof guulaysta ah, balse waxaad guulaysta ku noqon kartaa adigoo daacad u noqda fikradahaaga iyo mabaadi'daada. Qari murugadaada sababtoo ah kuwa aad u muujinayso waxay kaliya ka shaqayn doonaan inay kugu sii kordhiyaan murugada. Dhaliisha, cabashada iyo eedeynta waa waxyaabaha ugu badan ee nacasyada ay sameeyaan. Qoraxda aysan kugu dhicin adigoon wax shaqo ah qaban. La dhaqan bulshada oo dhan, la saaxiib dad yar, hal shaqsi ka dhigo saaxiibka kugu dhow, wax cudwaana ha yeelan. Caajisku wuxuu adkeeyaa wax walba, halka shaqadu ay ka dhigto wax waliba fudayd. Qorshaaga ha ahaado mid adiga qaas ku ah, ficilladaadan ha ahaadaan kuwa cad. Ka digtoonow qarashada yaryar, sababtoo ah dhibaatada yar waxay keeni kartaa inuu markab weyn quuso. Hadda iyo jeer xusuusnow inuu waqtiga yahay hanti qaali ah. Dhibaato waliba waxaa lagu xallin karaa aqoon iyo adkaysi. In xilli hore la hurdo, xilli horena la soo tooso, waxay qofka ka dhigaan qof caafimaad qaba, hodan ah oo xigmad leh. Waxaa laga yaabaa inaanan xakamayn karin wax kasta oo nagu dhaca, laakiin waxaan xakamayn karnaa waxa gudaheena ka dhaca. Dhisida sumcadda waxay u baahan tahay shaqo badan oo wanaagsan, laakiin sumcad inaad weyso waxaa ku filan hal falo xun. Wax waliba oo ka bilowda carada waxay ku dhammaadaan ceeb. Qofka doonaya inuu ku noolaado nolol raaxo leh waa inuusan xukmin wax walba u arko. Aamusnaanta waa awood iyo xikmad. Sharafta nolosha ma ahan inaadan weligaa kufin, balse waa inaad kici karto mar walbaad kufto. Dad badan ayaa u haysta inay iibsanayaan raaxo, hase yeeshee dhab ahaantii waxay iibsanayaan naftooda sida addoomo la addoonsado. Dhammaanteena waxaan ku dhalanay jaahilnimo, laakiin hawshaada nolosha waa inaad si adag u shaqayso si aadan u sii ahaan jaahil. Weligayga ma arag shaqsi ku wanaagsan marmarsiyada shaqo kale ku guulaystay. Qor wax u qalma in la aqriyo, ama sameey wax u qalma in la qoro. Haddii aad jeceshahay nolosha, ha lumin waqtiga, sababtoo ah nolosha waxay ka kooban tahay waqtiga. Haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol raaxo leh, sameey wax lagaa rabo ee ma ahan waxaad rabto. Marka aad dadka kale u wanaagsanaato, naftaada ayaad u wanaagsanaatay. Haddii aadan dhoola caddayn karin, ha furan ganacsi. Haddii aad rabto inaad ogaato qiimaha lacagta, isku day inaad soo amaahato xogaa lacag ah. Muhiim ma ahan inaad cimri dheer noolaato, waxaa muhiima inaad ku noolaato nolol wanaagsan. Waxaad maanta qaban karto beri ha u dibdhigin. Waad dibdhici kartaa, laakiin waqtigu ma dibdhaco.